طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. دعوة يا الكسر دوادة برنامج كأني أنقوم أعذرني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آيات قرآن كمدة وهي إلهي وحليه سبحانه وتعالى ما يكون تدبرون ما حيكون تدبروا وين كتابك إلهي مركا أي آخرين أيام مس قلوب تدتك أي قفل سارنتهاي أو عن برنامج كان حقول ترجلنا دتكو إن أي عن كبر إنه إن كتابك إلهي مركا آخرين أيام أي كون تدبران أي معنيس dhuuxayn أي كو عمل فلان waxaan kusoo qaadanaa daa'iman jus kamid ah jusaska quraanka ee 30ka jus kamid ah ayaan xalaqa kusoo qaadanaa xalaqaadka barnaamij kamid ah muddo 10 daqiiqo aan kusoo koobno abrasul mawduucaat ama mawaadiicda ugu waaweyn ee juskaasi uu taabtay maanta xalaqadan waxay ku saabsan tahay juska labaatanaad ee quraanka kariimka ah juska labaatanaad wuxuu ka bilowdaa aayada 56 ee suuratu an-naml waxa uu ku dhamaadaa aayada 45 سورة العنكبوت انت ويجسك لباتناد القرآن الكريم كأه هدي أن كهر من سورة النمل هوري أن قيب كسو هذا النبلوغ يدي إلهي سبحانه وتعالى سورة القرآن كمكية كميدة قرآن كمكية اللي يرهدنا بدنا وحوق ساره ما ركت عقيدة iyo bacثigan aakhira la soo saari doono in la abaal marin doono in janno iyo naar ay jiri doonto arimahaas aad uga hadlay risaalada Nabi Maxamed iyo ma ragtay waxyiga iyo ka hadlo suuradu waxay ku bilaabatay quraan kariimka ee cadiimka ee xujada ah ee burhaanta ah ee mucjisada ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala Nabi Maxamed ku soo dejiyay taasin tilka aayatul qur'ani wa kitabin mubin Ilaahay markuu muqattac xarafkaas taasin oo ku bilaabay وحي تلك آيات القرآن وآيات القرآن هي كتاب عدوية قرآن كان كريم وحي أي كهذا شيء سورة سي فافاسا قصة النبي الله سليمان النبي الله داود يويل كيسي سليمان سنة النبي أها لبضوا لو بقر لو ملكنا لو بقر لو النبي أنا هي أهايين إلهي وحواه اللي وح ونعمي لو ذا النبي iyo siday shukriga uga soo baxeen Ilaahay ay ugu shukriyeen subhanahu wa ta'ala iyo powerkii sultadii Ilaahay siiyay sida ay ugu guteen jidka Ilaahay iyo faafinta xaqa iyo diinta Ilaahay dad gaarsiiyaan suuradu waxay ka hadashay baraahinta ama waxyaalaha xujooyinka cadcad ee tusinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wujuudkiisa iyo ahaanshihiisa iyo inuu soo waaxid yahay koonkan isagoo khaaliq abuuray yahay oo kaligiisna mudan yahay subhanahu wa ta'ala in la caabudo marka aqeed tawxiid iyo xasuusin la xasuusinayo ni'amka Ilaahay noo galay ee waaweyn ayay suuradaasi ay aad iyo aad ugu nuxnuxsatay qisatu Lut ayaa lagu sheegay Nabi Ilaahay Lut iyo qoomkiisii xumaa ee faaxishada xun sameeyay waxaana Ilaahay ku sheegay markii Nabi Lut uu yiri war faaxishadan iska dhaafa waxay dhaheen waxaan ka saaraynaa magaaladayada ayaan ka saaraynaa ama waad iska deynaysaa waxa ku jirtid marka halka culimadu waxay dhaheen waxa laga qaataa qoomku haday marxuna xumaadaan oo mufsidiin ay noqdaan uma adkaysan karaan in dad daahir ah oo wanaagsan oo khayr iyo cifo iyo xishood iyo u yeeriyo inay ku dhex noolaadaan ama waa inay xirxiraan ama waa inay dilaan ama inay magaalada ay ka dhoofiyaan way suuratu qasas oo iyaduna juska kamid ah oo iyaduna quraanka makiga ah iyaduna sidoo kale dhanka aqeedada iyo tawxiidka iyo risaalada Nabi Maxamed iyo bacthiga bay iyaduna aad u faafaysay لكن محور الصورة صورة ماشي أي كوريجس بيدعوا وقصص كمعركتي أي كورنتي أو مجعب صورة قصة لو بحيي أو الحق والباطل دائما إن إسكسور كذا حق يا باطل إن إسكسور كذا دقيانك يا قوق يا مارت قومك قوقي أنبياء إلهي حق ديدي يا سراعي إلى جلين أنبياء دي هردنك كده دعي حق يا باطل أي آد iyo shaytaanku sida uu basharka u dhumiyo
ayay aad uga hadashay suuraddu si tafsiil ah waxay suuratu qasas uga hadashay qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam laga soo bilaabo qabla wilaadati intuu dhalan ka hor ilaa bay'adii uu kusoo barbaaray siduu guriga fircoon u tegay fircoon oo ballan qaaday inuu wiil reer bani israa'iil uusan aan la dayn sida ilaahay subxaana wa tacaala isaga laftigiisa uu ugu barbaariyey ilaahay mucjizadaas weyn buu ilaah ku sheegay subxaana wa tacaala suuratu qasas runtii waxyaalaha cajiib kale ay ka warantay waxaa weeye laba qooq oo midba noocuu yahay bay sheegtay iyo caaqibadii meesha ay ku dambeeyeen mid waxaa weeye fircoon oo namuudaj ama tusaale u ahaa xagga duqyaanka iyo qooqa suldaanka markuu qofku awood iyo power u sheegto uu yidhaahdo yaa iga awood badan yaa iga xoog badan ilaahnimada heer uu ku sheegtay junuud iyo ciidan iyo quwo iyo markuu arkay iyo meeshuu ku dambeeyey ilaahay uu ku qarqiyey bad kii kalena wuxuu ahaa ninkii kibray ee maalka sheegtay qaaruun oo maaragtay mafaatiixdiisa kunuustiisa mafaatiixdeeda waxaa xambaari jiray intaas oo farda iyo awr baa xambaari jirtaa layidhi oo yidhi maaragtay waxaa laygu siiyey maalkan cilmigeyga iyo aniga maaragtay shaqaystay uu yidhi isagana ilaahay subxana wa taala dhulkiibuu yidhi qabo oo dhulkiibaa liqay isagana marka haadihi sunnatullahi subxana wa tacala fi lkown ilaahay inuu halaago kuwa mustabidiinta qooqay maaragtay xaqdarrada ku socda ilaahay waa u kortaa laakiin aakhirka ilaahay waa qabtaa subxaana wa tacaala suuraddu waxa ay ishaartay suuratu lqasas runtii dowrka muhiimka ee dumarku ay ka galaan caqiidada iyo faafinta diinta iyo dowrka ay bulshada ku leeyihiin ayaa suuraddu ay ibraasay saddex qiso oo saddexda dumar ay maaragtay ay ku lug lahaayeen bay sheegtay mid waxa weeye dowrkii mowqifkii ay istaagtay ummu muusa muuse hooyadiis inay u cabsanaysay wiilkaas kadib say gabadheeda ugu dirtay kadib iyadii lagu soo celiyey oo ay nuujisay yani nabiga ilaahay hooyadii say u barbaarisay ilaahay maaragtay buu ilaahay ka hadlay dowrkii walaashiis ay lahayd iyadoo say maaragtay ay webigii markii lagu tuuray wiilkii isagoo ku jira santuuq inay raacday ilaa reer fircoon ay markii ay qabteen ay tiri mayn tusiyaa reer idinka faala qaadayo marka dowrkii gabadhaas ay lahayd iyadana waa lagu xusay maaragtay gabadhii nabilah shucayb ee nabilah muusa markuu reer fircoon ka cararay oo shucayb uu tegay ardul madyan uu tegay gabadhii iyaduna tiri yaa abat istaajirhu ina khayra man istaajarta alqawiy amin dowrkii iyaduna ay ku lahayd marka dumarkaas oo dhan adwaarta muhiimka ama maaragtay sida mawaaqifta muhiimka ay istaageen waxaa loogu xusayaa inay dumarku yihiin bulshada qayb ka mid ah islaamkuna uu qirayo dowrkooda muhiimka ayna yihiinna maaragtay shaqaa'iqu rijaal aan laga maarmin runtii loona baahan yahay in maaragtay si sharaf ay ku jirto oo wanaagu ku jiro wixii khuseeya ay uga qayb qaataan suuratul cankabuut oo iyaduna qur-aanka makiga ah mawduuceedu iyadana sida suwarka makiga bay caqiidada iyo bacfiga in la soo saari doono iyo xisaabta iyo qisaska ambiyada iyaduna kama marna waxay laakiin aad runtii suuradda lagu bilaabayba in dadka muslimiinta ay u sabraan ibtila'aadka waxyaalaha imtixaanaadka soo maraya ama ha ahaado xag faqri ama ha ahaado xag cadow ama ha ahaado xag jiro ibtila'aadka soo maraya in umamkii naga horreeyey siba dadka ducaadda ah inay xaqa ku sabraan iyo gaarsiinta xaqa inay ku sabraan haddii la xiro haddii la dilo haddii lagu dhibaateeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku bilaabay suuradda uu leeyahay alif laa miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamana wahum laa yuftanuun markaasuu ilaahay wuxuu ku khatimay inuu ilaahay hanuuniyo kuwa jidkiisa ku jihaada والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إن لو بهين حق مارك لو سقناده إلهينا وبلن قاضي قفكي حق ماركتي كسقناده أو إلهي جدكيس ماركتي كسقناده إنه إلهي وكهنونيو طريقة توسن أو وناكسن إلهي وحكوشه سبحانه وتعالى آيات القرآن كإلهي وليه أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإن بدن جمعة أن مقلنه runtii waxaa ku jira dardaaran aad u weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dadka muuminiinta u dardaarmayo oo ay ugu horeyso sida utlu maa uxiya ilayka min alkitaab inaan kitaabka ilaahay akhrino barnaamijkaana waxaa wataan ugu macdarnay afalaa yatadabbun kitaabka ilaahay horta inaan akhrino oo aan ku tadabburno oo aan ku dhaqanno ayaa loo baahan yahay iqaamatu salaat buu ilaahay ku xijiyey in salaada la oogo iqaamadeeda wax waqtiga lagu tukado shuruudeeda iyo arkaanteeda la ilaaliyo maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi salaada maaragtay waxa ay reebaysaa alfaxshaa walmunkar iyo waxyaalaha xun ay reebaysaa qofkii ay salaadiisu aysan ka reebin waxyaalaha xunna
ha ogaado in salaadiisu ay khalal ku jirto ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu arsaaqo tilaawata kitaabihi alkariim iyo iqaamatu salaat inuu naga dhigo kuwii ilaahay ku shukriya subxaanahu wa tacaala subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaghfiruk وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.